dugaal waa buugga ka hadlaya qiso dhab ah oo dhacday taasoo uu ka diyaariyay qoraaga ugu da'diyar qoraayada ka jira gobolka Godo waxaana uu qoraagani si weyn uga faagalooday qoray buugga dugaal dad iyagu isdugaashanaya oo muddo kala dheeraa 9 sano ah waxaana uu dadkani mid ka mid ah uu ku xirnaa xabsi halka midka kale uu ahaa mid xorriyadiisa haysta labadani shaqsi ayaa iyagu kala dheer isdugaashanayay waxaana shaqsiga banaanka jooga uu subax kasta oo waa baryaba uu ku booqan jiray xabsiga lamaanihiisa ka xiran sheekadani oo ah qiso aad u xanuun badan ayaa qoraaga da'da yar uu qoray muddo ka badan 5 sano waxaana uu qoraagani xusay in sheekadani xaqiijinteeda uu muddo 5 jeer ka badan uu u safray buugga dugaal ayaa waxaa bandhigiisa koowaad Jaanis u heshay in lagu soo bandhigo caasimadda Garowe isagoo safar dheer qoraaga uga soo galay in uu Garowe ku daafuro waxaana habeennimadii xalay lagu daafuray jaamacadda Boosaaso farceeda Garowe iyadoo ay dalada Maandaar iyo dhalinyaro kale ay goobtaasi ka hadleen kuna booriyeen dhalinyarada in ay buuggani iibsadaan oo ay si fiican u dhuuxaan qisada dhabta ah ee buuggu ku fadhiyo waliba aan nasiib u yeelnay buuggeena xaggan lagu xarag jaro Garowe safar dheer soo galay Garowe balad xaalawo Nairobi Muqdisho saddex laakiin halkan waxaa nala joogo bal buugga wuxuu daaran yahay inaan bal wuxuu ka yiraahdo sida caadiga marka la qorayo sheekooyinka ha noqdaan qisooyin dhaba bashir ka faa'iido ama fictions ha noqdaan ama qisooyin waxay leeyihiin bilow iyo dhammaad maxaa uu wareegaysaa qisooyin iyo wax jacayl iyo sabti la xiriira waxa koobaad ay ugu soo degdegay baa waxay noqotay waxaan ku yiri bishii 9aad baa la maraya mise buug baa akhrisay weligii buug baa akhrin buu yiri reconcile wasaqana wuu sicda caadi ugu jawaabay waxaan ku yiri adoo weli buug akhrin baa dad doonaya inay qisada la soo wadaageen oo dhiiradaan ay ku jirto la wadaagay oo rabo inay usoo bandhigo wax akhriyaan baa waxaad ka hor istaagaysaa maxay inuu qofku wax korsado oo wax samaysto so marka personally ilaahay weynaanta uu sameeyay qisooyinka in laga wariyana waa sheegnay reer Garowe buuggan dugaal awalkan waxaa loo yaala tiro kooban 9 buug baa loo yaala 9kaas buug inaan si qurux badan u iibsano annagoo caafimaad qabna si aanu uga faa'iidaysano bandhiga quruxda badan ee caawa lagu qabanayo howlka aynu soo camirnay awalan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhalinyarada wajooda quruxda badan ee waqtigooda qaaliga noo soo horay si ay noogala qayb qaataan bandhiga marka labaad waxaa inaan soo dhaweeyo qoraaga weliba safar dheer noo soo galay gobol aad u fogna nooga yimid si uu noola wadaago fariin aad u qurux badan uu noo siiyo annaguna aanu qaadano kuwii qaata oo gurihii kula noqda dadkii kalena uga faa'iideeya si ay u noqoto khibro qaadasho qoraa Saamir soo dhow saaxiib Saamir wuxuu ka yimi gobolka Kenya ee xuduudda la leh waddan oo Soomaaliya gobolka labaad ee ugu weyn Soomaaliya waana qoraaga Kenya qoraa kale oo reegada oo da'yar ay gobolka Gedo oo gobolkii ay ka soo jeedeen labadii Maxamed ee saameynta wanaagsan ku lahaa Soomaaliya waa Maxamed Cabdullaahi iyo Maxamed Siyaad Barre Maxamed Siyaad Allah ha naxariisto farmaajana caafimaad iyo nolol waartaan u rajeynaya ka sokow in reer Gedo oo caan ku ah siyaasadda ay qaliilayda ku soo biiraan waliba bahda jacaylka aad baan ugu faraxsanahay maadaama Garowe iyo Gedana ay gacda ka siman yihiin reer Garowe waxaan ka codsanaynaa inaanu Gedo ku dayano aynu intaynu siyaasadda ka nasanno iyo una kaale iyo aynu buugaag jacayl qorno xasan cabdirasaaq xaaji aadan oo ah gudoomiyaha dalada mudan gobolka Nugaal oo ka hadlay daafurka buuggan ayaa soo dhaweeyay qoraaga ugana mahadceliyay fursad uu caasimadda u siiyay bandhiga buuggani halkan soo bulshada soo camiray walaalkeen caamil oo meel fog inooga yimaaday Gedo iyo koonfurta marka in buuggiisa caawa lagu soo bandhigo Garowe inaga sharaf bay noo tahay waana fariin ay dirayso in dhalinyaradu aysan lahayn xayndaab waliya daan caawa u baahdo waana qoraaban ahayn waxbaan qorin inaan badaxaawo iyo shabeelooyinka inaan wax ku soo bandhigo waxaan iga celinayaa ma jiraan marka waa awood ay dhalinyaradu leedahay
meel kasta ay tagaan iyo meel kasta ay damcaan inay aadaan wax ka celiya inaysan jirinin. taasna waxaa keenaysaa sida dhalinyaradu isugu furan yihiin, isugu aloofiyow yihiin, isu jecel yihiin. arrinta marka waxaa rabaa inaan xoojino. Garowe waxaa rabaa in astaan u noqoto xarunta dhalinyarada Soomaaliyeed, in dhalinyarada jaarkeena ah oo gobollada fogfog jira ay ku hamiyaan inay Garowe yimaadaan oo Garowe soo booqdaan. taas uma baahan tahay in laga shaqeeyo, waxay u baahan tahay in waqti la geliyo. waxaan ku imaan kartaa in soo dhaweyn fiican ay ka helaan dhalinyarada inaga la midka ee jecel magaalada yimaadaan, sida walaalkeen Saamir iyo kuwa dambe ee ku xigi doona. marka waxaa rabaa inaan isagana u mahadceliyo, sababtoo waa geesinimo. deegaan aadan hore u tegin, dadkiisa iyo dhaqankiisa aadan aqoon, in aad isku halayn usoo aado, yani waa dhiiranaan xoog weyn. marka waxaa rabaa inaan isagana u mahadcelino, rajeynayaa deegaamada kale Kaar iyo Barigeeda inaan gaari doono haddii la ka dhigo. intaa haddaan uga tago kula buuggaana caawa marti inoo ah, waxaan rajeynaya inteena halakan fadhida inaynu kulligan qaadan doono. ninkii saaxiib u qaadaya iyo ninkii xaasla ama odayda u qaadaya iyo ninkii naftiisa u qaadaya. qoraaga buugga Cabdinaasir Xasan Saamir ayaa sheekada buuggani intuu qorayay waxa uu sheegay in caqabado badan uu kala kulmay isla markaana qormada sheekadani. horta Garowe waa caasimadda maamul goboleedka Puntland. aniguna waxaan ka imaaday magaalada Baraxaawo ee ku taala geeska Soomaaliya. kolley waa xuduud laba wadan lala xuduud, waa magaalo xuduud ah haddana laba wadan xuduud leh. Garowe markaa imaanayay qofka ma aqoon. hal xildhibaan oo reer Qarabdho ah oo weliba Garowe train u joogay, saaxiibkii Cabdiraxmaan bisa ka aqaana Garowe. maalinkaas soo galay magaalada marka koowaad waxaa la weydiiyey xagee u socotaa? aan ku yidhi Garowe u socda. waxaa lagu yidhi damiinkeed. saa ku yidhi warmiya oo nin reegeedaan nahay, reer Balaxa waa ahay, qoraana waa ah. kolley meesha u socdana meel kale mahana, waa meel ka mid ah Soomaaliya, khaasatan waa magaalo magaalada ama caasimadda Puntland. waxaan rabaa haddii damiin laga raban dee maamulkayga waayo, haddii kale hala isii daayo. marka waxaa lagu yidhi ma reer Balaxa waa tahaa, xoogaa wixii oo soo jiifo hooseedka haddii la itiriyay hayo orod. horta taas ooga mahadcelinaya maamulka iyo amniga say u sugahayaan iyo barwaaqada Garowe ku jirto. qorista iyo waxaan rabaa qorista buuggayga Dugaal inaan ka hadlo. horta buug in la qoro ma fududo. wax waad qori kartaa, laakiin inaad wax qoto dheer oo xaqiiqo samaysan oo aadan been ka sheegin inaad qorto waa adag. marmarka qaar haddaad xataa sheekeynaysa been waa ku sheekeyn kartaa, laakiin markaad runta rabto inaad dadka u sheegtid wixiina wax dhab ay yihiin, bulshadana inaad ka baraarujisay waa inaad wax xaqiiqada aad ka sheegtid. buuggan waxaan qorayay 3 sano iyo bar ilaa 4 sano. waxaan safar u galay wax ka badan 6 jeer inaan xaqiiqadiisa soo dhamaysto. maaha buug ani haddaa soo qorqoray aan la soo tegay, sidoo kale wuxuu soo maray Akadeemiyadda Qaranka Dowladda Federaalka Soomaaliya. xoogaa hadda dadka qaar baa fariin ii soo dirahayo, waxay dhahayeen xarafka Dugaal maxaa laga wadaa? horta Dugaal waa dugsi, qisada iyay ku dhex jirtaa. waa 2 qof oo qofna xabsi ku nool yahay, qofna qofkii xabsiga ku noolaa oo isagoo banaanka jooga uu qofka xabsiga ku noolaa dugaashanayo, kii xabsiga ku jirana qof banaanka jooga uu dugaashanayo. Jaamac Dabaraani oo ah afhayeenka madaxtooyada Puntland oo daahfuray buuggani ayaa sheegay in loo baahan yahay sheekooyinka la qorayo in ay noqdaan kuwa dhaxal reeba. idinla dhiirigeliyo qoraaga hindisay hal abuurka la yimi ee barnaamijkan soo bandhigay. runtii wax sahlan maaha marka wax qoriyo. anigu waxaan u malaynayaa inaan 17 sano ahaa tafatirkuna waa meesha ugu adag ee qofka wax daabacaya uu istaago. waxaad ilaalinaysaa xaraf hooska xariiqan, waxaad ilaalinaysaa 2 xarfood oo soo laabanaya, waxaad ilaalinaysaa meel dhibicile hadday kooban noqoto, waxaad ilaalinaysaa goorta ay tahay xarafka weyn inaad bilowdid, waxaad ilaalinaysaa habdhiska sheekada.
maxay noqonaysaa dowladeedu, muxuu noqonayaa dhammaadkeedu. waxaad ilaalinaysaa dadku sidee u arkaya, oo waxaa laga yaabaa meeshaada joogaa maxkamadda saaraysa, dadka shacabka wuxuu arkaya qaab noocaas, qaar kale noocaas, kuwa sidaas buu arkaa. waxaa lagu bartaa qaybta conflict reportingka ee sida wararka xasaasiga loo diyaariyo, qayb dhan oo warbaahinta ka mid waayo. marka editorial, qof editorial ah oo editorial soo maray oo sanado ku shaqaynayay oo idaacado kala duwan kusoo shaqaynayay, qof buug qoray marka uu arko wuu dareemi karaa waqti uu geliyay, habeena iyo maalmo inuu ninkaasi soo jeeday oo uu dul fadhiyey oo uu eegayay. magacaasaa laga yaabaa inuu dhowr bilood qaatay in laga fikiro in magaca loo bixiyo, sheekadana ha dhowto meel uu lagaga sidko oo laga waafajiyo. marka waxaan oran karnaa dadka wax qoraa, dadka ganacsatada ah waxay inoo hibeeyaan ganacsigooda, ciidamadu waxay inoo hibeeyaan naftooda, dadka wax qorana maskaxdooda inoo hibeeyaan. sababtoo ah dadka bulshada haddaan waxba loo qorin oo weliba taariikhaha laga sheekeyn, dadka inaga dambeeya waxba ma heliyaan. qoraalku waagii dambe inkastoo Soomaaliya markay burburtay dhibaato badan ay ka timi taariikhaha sida loo qoray, oo qof walba uu ku sidkay gobolkiisa iyo deegaankiisa iyo maamulkiisa iyo nidaamkiisa. oo haddii maanta la weydiiyo 3 qof oo 3 magaalo oo koornaha iyo dhexda magaalada kale iyo dalka kala jooga la weydiiyo la dhaho Soomaaliya yaa ugu soo horeeyay joogay, qof walba wuxuu anaga ugu soo horeeyay. macnaha markii dalku burburay dadkiina way burbureen, maskaxdana waa ka burburnay. marka haddii dhalinyaro inoo kacday oo taariikhdii inoo qorayso oo si fiican inoo qorayso oo dhaqankii iyo sheekooyinkii iyo xasaawihii iyo waxyaabihii la xiriiray ay ahayd dadka Soomaaliyeed inay maqlaan ama akhristaan, haddii dhalinyaro u kacday iyagana waxay naga mud yihiin inaan dhiirigelino, waxay naga mudan yihiin inaan muujino kaalinta ay bulshada ugu jiraan. waxaan qabaa in la garab istaago, loo qabto munaasabado inta ka ballaaran. dhalinyaradii halkaan kusoo dhaweysay oo xildhibaanka iyo gabdhihii isu dhilqaamaya aad baan runtii uga mahad celinaynaa magaceena iyo magaca gobolka iyo ka Puntland oo dhanba kor qaadeen. Maxamed Siciid Yuusuf, STN, Garowe.